Assalaamu calaykum asxaabta. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka oo idiin soo gudbiso bukaan deeq. Mowduucan waxaan uga hadli doonaa suurtagal ma tahay in gabadh uurka leh ay ogaan karto maalinta ay dhalayso ama xilliga ay dhalayso ayadoo aan tagin takhtarka kombiyuutarka uurku jirtana la soo saarin oo loo soo sheegin. Waxaan idin kala dhigdhigi doonaa qaabka lagu ogaan karo si hooyo walba oo u baahan inay isku daydo ama ay wax ka ogaato go'aadka maalinta ay dhalayso ay u hesho xisaab ahaan iyadoo isugu darsanaysa cid walba oo rabta inay aqoon ahaan ka faa'iidana aan isku dayi doono inaan fahansiino si u xaqiijiso ama ay u hesho maalinta ay dhalayso gabadha uurka leh waxay u baahan tahay inay og tahay ama ay taqaano maalintii ay heshay dhiigga caadada qiyaastina ay heshay kadib uurka oo caado kale aysan helin maalintii inay aqoon u leedahay oo ay meel ugu qoreed ama ay xasuusato ayaa laga rabaa. Marka tusaale ayaan qoranaynaa si aan idin fahansiiyo ama u fahansiiyo qofka isku dayaya inuu ogaado. Tusaale ahaan dhiigga waxa ay heshay caadada gabadha uurka leh hadda markii hore waxa ay heshay qiyaastii 7 bishii 2 2019 ayay heshay tusaale ahaan. Marka qaacidada sida aan wada ognahay hooyadu 9 bilood ayay uurka ku sidaa minkeeda ama ilmaha ku sidaa minkeeda 9kaas bilood oo dhigma 40 isbuuc walbana uu yahay 7 maalmood. Hadii 7 maalmood lagu dhufto 40 isbuucna waa 280 maalmood ayay uurka sidaysaa. Marka waxaan dhahnay tusaale ayaan bixinaynaa dhiigga waxay heshay gabadhu 7 bishii 2 2019 kadibna dhiig kale ma imaan oo uurkii ayaa yimaaday oo isku aragtay. Marka waxay rabtaa inay ogaato maalinta ay dhalayso waxaa la sameeyaa marka 7 oo ah maalinta ka turjumaysa maalinta ay dhiig heshay ayaa waxa lagu dari doonaa 7 kale oo 7 maalmood ayaa lagu daraa mar walba. bisha oo ah labadii waa 7 bishii 2 labada bisha oo ah bisha koobaad iyo bisha labaad iyo bisha saddexaad ayaga waxaa lagu daraa 9 bilood ayaa lagu daraa. 9kaas oo ka turjumaysa waa 9ka bilood oo ay uurka sidayso gabadha. Marka 9 maadaama lagu daray 9 laba hadii lagu daro 12 ay noqonaysaa 2019 kuna ma isbedelayo waxba lagu ma dari doono. Marka hadii aan isku soo darno waxay noqonaysaa 14ka bisha 11aad 2019 ayay dhali doontaa gabadhaasi. waxaan dhahnay 7 bisha 2 2019 ay dhiig heshay kadibna uura yimaaday oo dhiig kale ma aysan helin. Marka waxa la sameeynaa 7 oo maalmaha ka turjumaysa ayaa 7 lagu daraa 7daas oo ah intay uurka qaadayso kadibna 2 oo ah bisha waxaan dhahnay bisha 2 bisha koobaad bisha 2 iyo bisha saddexaad 9 ayaa lagu daraa oo hadii bilahaas ay tahay xilliga uurka ay macnaha ay dhiig heshay gudaheeda 2019 kuna ma isbedelayo. Marka waxay noqonaysaa 14ka bisha 11aad 2019 inay dhalayso. Okay, taas aan ka soo gudubno. Tusaale kale ayaa wuxuu leeyahay gabadhu waxay dhiig heshay 7 bishii 5aad 2019. waxaan dhahnay mar walba 7 oo maalmaha ka turjumaysa 7 kale ayaa lagu darayaa sidaas waxay noqonaysaa 14. marka meeshan waxa taala 5 ayaa taala. marka maadaama ay 5 taalo 9 lagu ma dari karo hadii 9 lagu daro waxay noqonaysaa 14 marka 14 bilood ma jiraan. marka waxaan sameyn doonaa waxa imaan doonta bisha saddexaad bisha koobaad bisha labaad bisha saddexaad 9 lagu daray bisha afraad ilaa bisha 12aad marka waxa laga jari doonaa 3daas oo ah waxa laga jiri maadaama 12 bilood ay yihiin bilaha 3 hadii laga jiro 12 9 bilood soo haraysa 9kaas bilood ka turjumaysa 9ka bilood oo uurka sidayso gabadhu. marka 5 ayaan 3 ka jari doonaa 2 ayaa soo hari doonta maadaama aan 3 ka jarnay 5tiina waxa isbedeli doonta 2019 oo waxay noqon doontaa 2020 waxaan ku dari doonaa sanadan ku dari doonaa macnaha 2019 meesha ka sanadan ku dari doonaa sababtoo ah halkan waxaan dhahnay 14 bisha 2 2020 7dii waxaan ku darnay 7 oo maalmihii ahay bisha shanaadna 3 ayaan ka jarnay oo 3 bilood ah waa 3 bilood oo sanadka maadaama 9 ay sidayso 12 bilood ay ku dhamaato 3dii ayaan 5 ka jarnay 2. marka tusaale marka waxaan dhahnay gabadhan hadii qaado 7 bisha 5 2019 ay macnaha ay dhiig hesho
waxay dhali doontaa 14 bisha 2 2020. okay tusaale kale ayaa imaanaya meeshan marka hadii gabadhu ay hesho 28 dhiiga 28 bisha 2 2019 ayay heshaba ka soo qaad marka waxaan dhahnay 28dan waa maalmihii waxaan ku dari doonaa 7 waxay noqon doontaa 35 marka 35 bil kuma dhamaato 30 kaas bila buuxsantay bishaas waan qaadanaynaa 5 ayaan reeba doonaa qoran doonaa halkaas bil waan qaadan doonaa waxaan ku darsan doonaa bisha 2 sababtoo bil ayaan haysanaa sababtoo 7 marka lagu daro 28 maalmood 5 qoranay oo maalmihii ah 30kii bil ay u dhigantaa bisha waan qaadnay 2 ku dareynaa 3 noqonay kadibna waxaan ku dari doonaa 9kii aan mar walba ku dari jirnay bisha 1 bisha 2 iyo bisha 3 waxay noqonaysaa 12 marka 9 hadii lagu daro 3 ilaan halan ku soo darnay waxay noqonaysaa 12 bisha 12aad ayay noqonaysaa halkan ma isbedeli doonto 2019 ka ma isbedeli doonto sababtoo bisha 2aan haysanay awal bisha 3 hadii ahaan leed oo bil aan ku dari lahayn waa isbedeli lahayd marka 5 bisha 12aad 2019 ka ay gabadhaasu ayadana ay dhali doontaa oo ay heli doontaa dhalmada. okay tusaale kale ayaa wuxuu leeyahay marka ayadana 28 bisha 5aad 2019 ka ay gabadhu dhiiga caadada heshay si tusaalaha ahayd 7 ayaan ku dari doonaa 28 oo maalmaha hore ah markaan ku darno waxay noqon doontaa 35 marka 5 aan qaadanaynaa 30 ku bilay ka turjumaysaa bisha waxaan ku dari doonaa 5 6 ayay noqon doontaa 6 marka noo noqoto 5 macnaha waxaan dhahaynay 4 ilaa 12 inta u dhaxaysa waxaan ka jari jirnay 3 marka 6 ayaan 3 ka jari doonaa 3 marka 6 ka jarno marka 3 ayaa noo soo hari doonta 2019 kun oo isbedeli doontaa 2020 ka ayay noqon doontaa marka mar walba oo aan wax ka jarno bilaha sanadkuna waa isbedeli doonaa laakiin mar walba oo aan wax ku darno mi isbedeli doono sababtoo 1 2 3 hadii 9 lagu daro marka gudbiso 12 bilood marka sanadkuna isma bedeli doono marka sidaas ay calculationka ama xisaabinta u sameyn kartaa gabadha uur kale oo ay ku ogaan kartaa xilliga ay dhalayso marka waa sida mahadsantiin.